Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal waa Abulmoog Media aad uga baratay halkan inuu idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kooda ugu xisaaweyn waa maalinimo Sabti ah 16 bisha 5 2020 waxaan warkeena ku bilaabeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu hambaliyeeyay dhalinyaradii u soo halgantay gobonimo doonka ee dalka ee dhalinyaradaas oo 13 Israel isagoo ku soo bandhigay xafiiskiisa madaxtooyada sawiradooda aad loo qurxiyay waxaa hase ahaatee arrintaasi dhaliilay oo bartiisa Facebook ku soo qoray ninka mucaaradka amaba ugu afka dheer baynu oran karnaa ee la yiraahdo Cabdishakuur ayaa waxa uu yiri dhalinyarada ma jecla dowladda haatan jirta hase ahaatee anigu waan u hambalyeeynaya ayuu yiri isagoo aad moodid had iyo jeer inuu dhaliilo waxa ay dowladdu qabato waxaan kala idiin haynaa daawadayaal maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu khilaaf dhex maray madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kadib markii uu asbuucii la soo dhaafay uu iscasilay taliyay madaxtooyada ayaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Mr Dani waxa uu soo magacaabay taliye iyo ku-xigeen taasoo uu madaxweyne ku-xigeenka uu ku tilmaamay waxba kama jiraan isagoo digreeto ku soo saaray yirina waxaa sii joogay madaxtooyada taliye ku-xigeenka haatan jooga maadaama aan lagala tashan waxaad moodaa arrintan inay dhowr jeer soo noqnoqotay tan iyo markii la doortay labada nin ee isaga hooseeya xilka maamul goboleedka Puntland ee ah madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxaa isku qabqabsadaan had iyo jeer magacaabida xilalka iyadoo aanay ahayn markii ugu horeysay oo uu dhex maro khilaafkan oo kale ah waxaan haddaba daawadayaal idiin soo gudbinaynaa oo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigtay 2 diyaaradood oo noocoodu yihiin helicopter iyadoo tiri waxaan ugu talagalnay inaan ku buufino ayaxa saameynta ama dhibaatada ku haya beeraleyda dalka waxaad moodaa tallaabadan inay tahay mid aad hoos u dhigaysa saameynta uu beeraha u geysan jiray ayaxa dalka oo moodada inuu sanadahan dambe uu ku hayo fara ba'an waxaan kaloo ku jirnaa wararkii dalka waxaan idiin haynaa daawadayaal waxaa magaalada Muqdisho garoonkeeda aadan cadde ka dhooftay amaba halkaasi ka qaaday dad lagu qiyaasay 160 qof diyaaradii ugu horeysay taasoo ahayd Ethiopian Airways waxaa la sheegayaa safarkan ayaa waxaa qaban qaabisay safaaradda Mareykanka maadaama ay dadka ay qaadaysa diyaaradan u badnaayeen dad haysta dhalashada Mareykanka fadlan haddii tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay daawadayaal channelka subscribe iyo like kala bakhaylin waxaanu idiin haynaa hadaan galno wararka dibadda ninka dhaxal sugaha ah ee dalkaasi Saudi Arabia waa Mohammed bin Salman ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu maal gashanayo Hollywoodka dhinaca fanka ama muusikada dhaxal sugahan oo hadda ka horna horay u soo bandhigay inuu iibsado naadiga Newcastle ee ah naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska ee ciyaaro kubadda cagta ayaa waxaad moodaa markii uu ku timi Saudi Arabia dhaqaale xume ama hoos u dhac sicirka shidaalka ayaa waxaa moodaa inay u janjeersadeen qoysaska boqortooyada inay meelo kale ka raadiyaan dakhli fara badan haddaan u gudubno dhankaasi Mareykanka afhayeenka aqalka baarlamaanka ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Nancy Pelosi ayaa waxa ay tiri dhimashadu waa sii socotaa dhibtuna waa ay sii badanaysaa waxaan u baahannahay gargaar degdeg ah iyo adeeg dheeri caafimaad iyo in dhaqaale fara badan lagu bixiyo haddaan u gudubno dhankaasi iyo Turkiga filimka musalsalka ee qabsaday dunida dhan caan ka noqday ayaa waxaa la yiri waxaa caan ka dhigay wadamada ugu badan dunida islaamka ee ah Bangladesh, Pakistan iyo Indonesia inay daawadaan filimkan oo lagu magacaabo Ertugrul ayaa waxa uu ka hadlayaa taariikhdii Cusmaaniyiinta daawadayaal haddaan u gudubno dhanka iyo Asia dalka Vietnam oo lagu qiyaasay dadkiisu inay yihiin 100 qof amaba ka badan yihiin ayaa waxaa la soo sheegayaa inay aad ula dagaalameen faafidda cudurka COVID-19 iyagoo la sheegay in 300 qof ka yar laga helay waa Abulmoog Media tan iyo kulanti dambe oo wanaagsan. Wassalaamu calaykum.